golaha ayaa sidoo kale dib u eegis ku sameeyay soo jeedinta guddiga farsamo ee Baydhabo 16 February 2021 si ay u meel mariyaan qodobada farsamo ee soo jeedinta guddiga oo ka koobnaa 1 tubta xalinta cabashada la xiriirta guddiyada maamulka doorashooyinka ee labada heer 2 xalu helidda guddiga maamulka doorashada Somaliland 3 hanaanka xalinta khilaafka gobolka Gedo 4 hirgelinta qoondada haweenka 5 jadwalka qabsoomidda doorashada golaha ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobo ay u arkeen inay muhiim u yihiin qabsoomidda doorashada oo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka kan doorashooyinka iyo qariidada dhamaystirka dhismaha dawladnimada Soomaaliya haddaba golaha wada tashiga qaranka iyagoo tixgelinaya baahida loo qabo in doorashada hay'adaha federaalka ee Soomaaliya ay ku qabsoonto muddo cayiman kuna dhacda si nabad ah wadar olgol ah dalkana u horseeda xasilooni siyaasadeed waxay dood iyo falanqayn dheer kadib go'aamiyeen qodobada soo socda 1 tubta xalinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka goluhu wuxuu go'aamiyay iyada oo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood ah si loo bedelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wada tashiga qaranku saxiixaan heshiiskan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo cadeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacawday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo 2 maalmood gudahood ah guddiyadu waxay iska dhex dooranayaan guddoonkooda marka ay soo dhammaystirmaan qodobka 2 xalinta khilaafka guddiyada maamulka doorashada Somaliland golaha wada tashiga qaranku wuxuu go'aamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Somaliland isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa soo magacaabaya 4 xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta Somaliland seat 1 xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT iyo 1 xubin oo ah guddiga khilaafaadka qodobka 3 hanaanka xalinta khilaafka gobolka Gedo shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyay ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa xeeriyay soo jeedinta guddiga farsamada ee Baydhabo 16 Febraayo 2021 ee tubta xalinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbaharey haddaba goluhu wuxuu go'aamiyay golaha wada tashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubbaland golaha wada tashiga qaranka wuxuu go'aamiyay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo golaha wada tashiga qaranka wuxuu go'aamiyay abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo guddigu wuxuu mas'uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbaharey iyaga oo si dhow ula shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya guddigu wuxuu soo jeedinayaa min 2 xubnood ee jagada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey iyaga oo la tashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada guddiga waxaa lagu soo magacaabayaa muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka ay madaxdu saxiixaan heshiiskan madaxweynaha dawladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbaharey ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu
si waafaqsan soo jeedintii 16 Febraayo ee guddiga farsamada ee Baydhabo. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Gedo guud ahaan iyo tanjawiga qabsoomidda doorashada Garbaharey muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga. Dhinaca amniga doorashada Garbaharey goluhu wuxuu go'aamiyey in booliska AMISOM la geeyo magaalada Garbaharey si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta ay ka dhacayso doorashadu. In guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay soo magacowday Jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharaxiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto. Goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogasha nabadeynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 60 maalmood ah doorashada kadib. Qodobka 4 amniga doorashada. Golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood mas'uulna ka ah amniga doorashada uuna hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliiska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliiska AMISOM. In guddiga amnigu diyaariyo ciidamo u gaar ah ilaalinta goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Somaliland guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ee labada heer in aanay ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada. In guddiga amniga doorashadu ay warbixin joogto ah siiyaan golaha wadatashiga qaranka si ay go'aan uga gaaraan habsami u socodka ama xallinta xaaladaha taagan ee doorashada la xiriira. Qodobka 5 hirgelinta qoondada haweenka. Goluhu wuxuu isku raacay iyadoo la tix raacayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% in la ilaaliyo qoondada haweenka ee labada aqal. 6 jadwalka qabsoomidda doorashada. Golaha wadatashiga qaranka iyadoo la xiriirinayo dib u dhac ku yimid waqtigii loo asteeyay qabsoomidda doorashada federaalka ee 2020-2021 wuxuu go'aamiyey in doorashada lagu dhammaystiro muddo 60 maalmood gudahood ah sida ku caddayd soo jeedintii heshiiskii ama arrintii farsamo ee magaalada Baydhabo lagu gaaray 16 Febraayo. In guddiga maamulka doorashada heer federaal ee FID ay soo saaraan jaangooyinta jadwalka guud ee hirgelinta doorashada oo ku dhisan muddada ku xusan xarafka in guddiga heer dowladaha xubnaha ka ah SID ay diyaariyaan jadwal u gaar ah qabsoomidda doorashada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ah si waafaqsan jadwalka guddiga heer federaal. Qodobka 7 jaangooyinta wada shaqaynta golaha wadatashiga qaranka. Golaha wadatashiga qaranka ayaa ka mas'uul ah fulinta heshiiskan iyo ka shaqaynta amniga guud ee dalka iyo kan doorashooyinka.